weligaa ma isweydiisay waxa ku dhex dhuumanaya mugdiga habeenkii markaad keligaa waddada marayso? Sheekadan aan idiin wado ma ahan mid aan buug ka aqriyay, waa dhacdo dhab ah oo beddeshay noloshayda. Saacaddu waxay ku dhowdahay 2 habeenimo, waxaan watay gaari Land Cruiser ah. Waxaan ka imaanayay magaalada Muqdisho, waxaan u socday dhanka gobollada dhexe. Habeenku wuxuu ahaa mid aad u madow, waxaa da'ayay roob dhibco waaweyn oo muraayadda gaariga si waali ah u garaacayay. Waddadu cidlo ayay ahayd, waxa kaliya ee aan maqlayayna wuxuu ahaa guuxa matoorka iyo codka masaxaadaha muraayadda oo leh wiiq, waaq, wiiq, waaq. Markaan marayo meel u dhaxaysa 2 deegaan oo aad u kala fog oo dhirtu ay waddada dhinacyadeeda soo gashay, ayaan nalalka gaariga ku qabtay qof waddada geeskeeda taagan. Waaban ka naxay, meeshani waa cidlo, tuulo ma dhowa, roobna waa da'ayaa. Markaan u dhowaaday, waxaan arkay inay tahay gabar dhalinyaro ah. Waxay xirnayd dhar cad oo aad moodo inay uskag iyo dhoobo yihiin, dharkuna wuu qoyanaa. Gacanta ayay ii taagtay, caadada Soomaalida kama tagi karo. Waan istaajiyey, daaqadda ayaan dejiyey, waxaanan ku idhi, walaal meeshan cidlada ah maxaad ka qabanaysaa roobkan? Soo kor gaariga. Jawaab ma bixin, kaliya madaxa ayay ruxday, albaabka dambe ayay furtay, wayna soo gashay. Isla markii ay gaariga soo gashayba, waxaan dareemay qabow aan caadi ahayn oo gaariga gudihiisa buuxiyey. Ma ahayn qabowgii AC-ga ama kii roobka, ee wuxuu ahaa qabow lafaha kaa galaya, sida adigoo taagan qolka meydadka la dhigo. Gaariga ayaan dhaqaajiyey, muraayadda hore ayaan ka eegay si aan ula hadlo. Madaxa ayay hoos u foorarisay, timaheeda oo qoyan ayaa wejiga daboolayay. Walaal xaggee ku geeyaa? Tuulada xigta miyaad degan tahay? Ayaan weydiiyey. Cod aad u hooseeya oo xabeeb leh, una eg cod ka soo baxaya meel fog ama god hoostiis, ayay ku tiri. Haa, horay u wad, hana istaagin. Waan aamusay, waxaan dareemay inaan qalad sameeyey. Ur ayaa soo baxday. Urtaasi ma ahayn mid aan aqaanay, waxay u urtay sida caro qoyan ama ciidda qabuuraha marka roobku helo. Wadnaha ayaa bilaabay inuu i garaaco, dub, 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 dub. Idaacaddii gaariga ii shidnayd ayaa si lama filaan ah u ciladowday oo samaysay shanqar shaqaaq, shaquuq, shaqaqaaq. Waan damiyey, laakiin way diiday inay damto. Markaan mar kale muraayadda eegay, waan argagaxay. Gabadhii dharka caddayd ee dhoobada lahayd way isbeddeshay. Hadda madaxeedu kor ayuu u jeedaa, indhaheeda allow yaa i rumaysta. Indho ma lahayn, waxaa booska indhaha ugu yiilay mugdi madow. Naxdin darteed ayaan isteerinka si xun u qabtay, gaarigii ayaa libiqsaday. Waxaan isku dayay inaan bareega qabto, laakiin gabadhii ayaa cod qaylo ah oo dhagaha i dilaaciyey ku soo booday. Ha istaagin, haddii aad istaagtid waad dhimanaysaa. Waan gariirayay, waxaan ku socday xawaare sare. Waxaan maraayay meel waddadu ay qaloocato. Gabadhii ayaa si kedis ah u qososhay. Qosolkaas wuxuu ahaa mid aan bini'aadam samayn karin. Halkan ayay ahayd, ayay tiri iyadoo farta ku fiiqaysa geed weyn oo waddada dhinaceeda ah. Isla markii aan geedkii dhaafay, culayskii gaariga saarnaa wuu yaraaday, qabowgii wuu baxay. Si degdeg ah ayaan gaariga u joojiyey, anigoo neeftu ay dhuunta iga taagan tahay. Dib ayaan u eegay kursigii dambe, waa eber, qofna ma saarna, laakiin kursiga waxaa ka muuqda dhoobo qoyan iyo biyo, sidii qof hadda ka degay oo kale. Si waali ah ayaan gaariga u kaxeeyey ilaa aan ka gaaray tuulo yar oo shaah lagu cabo. Waan istaagay anigoo gariiraya, waxaan u tagay oday shaah karinayay. Markaan u sheegay sifaalaha gabadha iyo meesha aan ka soo qaaday, odaygii wuu qoslay, laakiin indhahiisa murugo ayaa ka muuqatay. Wuxuu igu yidhi, wiilyahow, alle ha kuu naxariisto, nasiib baad leedahay. Gabadhaas aad sheegayso 10 sano ka hor ayaa habeen roob leh lagu dilay geedkaas aad soo dhaaftay agtiisa. Halkaas ayaana lagu aasay. Sanad walba habeenka caawa oo kale ah, darawallada waddada mara way u gacan haatisaa, kuwii istaajiya ee qaadana badankoodu shil ayay galaan oo gadaal dambe looma arko. Anigu waad badbaaday habeenkaas, laakiin ilaa maanta, marka aan waddo marayo habeenkii, marnaba muraayadda gadaal kama eego, sababtoo ah waxaan ka baqayaa inaan arko wejigaas indhaha laa mar kale.